waxaan u mahadnaqayaa dhammaan guddida sare ee beesha Samane Abukor guddiyada ka hooseeya guddida fulinta iyo guddida soo qaban qaabisay xafladan qiimaha badan ee aynu ku soo dhaweynayno murashaxeena iyo xisbigeena yaan aad idinku mahadnaqayaa hadal badan oo aan odhan lahaa oo daaran taariikhda beeshan cabdi cismaan baa iga horreeyey cabdi farjar markaa ku noqon maayo kaa waxa kaliya aan odhanayaa beeshani waa beel gobolka togdheer caanka ah jamhuuriyadda somalilan caanka ah waddankii soomaaliya la odhan jiray ama mandaqadana laga yaqaano hadday tacliin tahay hadday hoggaan tahay rag fara badan baa ka soo baxay maanta beeshaasi tayadii waxay ku darsatay tiro iyo karti aad iyo aad baan sida aad u soo ajiibteen idinku mahadnaqayaa aad u soo dhowayseen waxa aan doonayaa war ma ismaqallaa dee aamusa haddaba waxaan doonayaa tartan baa lagu jiraa inaan u caddeeyo wafdidan ballaaran ee murashaxa muuse biixi cabdi hogaaminayo beeshu shiikh iyo shariif waa yeel iyo waxgarad wadaad iyo waran leh hadda maaha waran haddee waa waran waxa ay si mugle dhallinyaro iyo haween waxa ay si mugle u taageertay oo taageero la berber taagan tahay murashaxa kulmiye iyo xisbiga kulmiye doorashada soo socota waxay ku taageertay xisbiga saddex qodob qodobka koowaad waa murashaxa iyo astaamaha hoggaamiyaha saxi uu leeyahay iyay ku taageertay astaamaha waxaa ka mid ah himilada iyo visionka waxaa ka mid ah daacadnimada waxaa ka mid ah waxaan afka qalaadood lagu yidhaahdo inspirationka waxaa ka mid ah waxqabadka xisbigu muddadii uu talada hayay ee ahayd 7 sannadood wuxuu qabtay iyaynu ku taageeray wuxuu qabtay iyuu tartanka ku gelayaa haddaan in yar idinka taabto kontonkii sannadood intaanu xusbigu hoggaanka qaban 60kii ilaa 2010 waxa uu xisbigu qoday 203 ceel oo biyood iyuu qoday oo shaqeeya kontonkii sannadood ee ka horreeyeyna 170 baa la qoday 170 waxay noqotay inay waxtarka 7 sannadood ee kulmiye ay ka badatay kontonkii sannadood iyo dawladihii ka horreeyey iyay noqotay waxa uu dhisay xisbigu 277 iskuul iyuu dhisay 16 cisbitaal muddadaa uu hayay iyuu dhisay oo qalabeeyey waxqabad iyuu xisbigu ku mutaystay taageerada beeshan taageerada gobolka togdheer
حزب كلا لا ترتميا لما حزب لا ترتميا حزب قبل وحبك أوران مايو لكن waxaan doonayaa inaan idin yar qadar yar ka yiraahdo sheeko yar oo aan sameeyay oo humaaga oo aad wada garanaysaan waxaan uga gol leeyahay buu yiri hasha goray darteedu iyadoo gegida yacanba gulufkiyo cadaawu gumucyada ku qaadeen gay naga shisheeyiyo meel aan la gaadhayn intay dhacan ka gooyeen xiradiina loo gooyo markay waa xamar meesha bariga hore xirada looga goobay markay gaadhay fiidkii dhaybaa ku gaaxdo candhada ku qorantay olol guux la mooday ku garaacday tuugii isna gorof la soo roor shaw gurane weligii haaneedku geesuu kaga yaallo goray iyo gayaxaa la furo iyo muu barangadeed iyo sida loo gaboodsado ilaan waa gabbaan iyo nimay gaata haysee gabgabtiiyo hamuuntii ibihii gantoodnaa midba geesu jiiriyo gurracnaanta waa kaa hashii gaaxday ee madi gaagaxa ku beeray war nimanka meeshaa doonaya inay nuga celiyaan ma mas-uuliyad baynu ku aaminaa waxaa la yidhi ninbaa hal dhashay oo magayna ah oo madiya gowracay berigii dambe iyo dadka markuu ka soo horbaxo ee uu hadla waxaa la odhan jiray hashii dhashay gowracna ma hadlayaa war hashii dhashay gowracna ma hadlay waa xisbiga waddani hashii dhashay gowracna ma hadlayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa xisbig beeshuu kulmiyay ahayd waxay dhistay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo maantana waxay diyaar u tahay inay taageerto muuse biixi cabdi way taageeraysaa cod uu siin maysee hawshay gelaysaa ololahay gelaysaa qof waliba qof jaarkiisa iyo ehelkiisa iyuu u gudbinayaa farriinta xisbiga ka soo baxday in hore loo socdo aan dib loo socon in berrito ay maanta dhaami doonto in mustaqbalkeenna iyo masiirkeenna iyo aayaheenna ninka aynu ku aamini karraa uu yahay murashaxa xisbiga kulmiye guddoomiye mujaahid muuse biixi cabdi hawshii maantuunbay bilaabantay hawshii aynu gelaynay maantuunbay bilaabantay ilaa doorashadana waynu wadaynaa innagoo gacmaha is haysannaa oo isku duuban cid allaale ciddaynu soo jiidan karrana waynu soo jiidanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu